falimaha rasuullada cutubka 25 haddaba festos markuu soo galay gobolkii ayuu 3 maalmood dabadeed kaysariya ka tegey oo wuxuu aaday yeruusaalem markaasaa wadaadadii sare iyo raggii yuhuudda u waaweynaa waxay isagii u sheegeen wax bawlos ka geesa wayna baryeen oo axsaan ka weydiisteen inuu isaga yeruusaalem u soo diro iyagoo shirqool u dhigaya inay jidka ku dilaan habase yeeshee festos wuxuu ugu jawaabay in bawlos lagu dhowrayo kaysariya iyo in isaga qudhiisuba dhaqsiyo halkaas u aadayo oo wuxuu ku yidhi haddaba kuwa idinku jira oo amar kalu aniga ha iila tageen oo haddii ninkaasu wax qallooca leeyahay iyagu ha dacweeyeen isaga oo markuu iyagii dhex joogay in aan ka badnayn 18 maalmood ayuu wuxuu aaday kaysariya kolkaasuu maalintii dambe fadhiistay kursigii xukuumadda oo wuxuu amray in bawlos la keeno oo kolkuu yimid yuhuuddii yeruusaalem ka timi ayaa hareerihiisii soo istaagtay oo waxay keeneen dacwooyin badan oo waaweyn oo ayan iyagu xaqiijin karin markii bawlos isdifaacayey ayuu wuxuu yidhi anigu innaba kuma dembaabin sharciga yuhuudda ama macbudka iyo kaysartoonna laakiin festos isagoo doonaya inuu yuhuudda kaga farxiyo ayuu wuxuu ku jawaabay oo bawlos ku yidhi ma doonaysaa inaad yeruusaalem tagto oo waxyaalahan halkaas hortayda lagugu xukumo laakiin bawlos wuxuu yidhi anigu waxaan hor taaganahay kursigii xukuumadda oo kaysar halkanay waajib igu tahay in laygu xukumo anigu yuhuudda innaba xumaan kuma aan samayn sidaad aad ugu og tahay haddaba haddii aan xumaan falay oo aan galay wax dhimasho istaahila geeri diidi maayo laakiin waxyaalahan ay kuwani igu dacwaynayaan haddii aan wax runa lagu arag ninna iima gacan kelin karo iyaga waxaan u ashkatoonayaa kaysar markaasaa festos markuu shirka la tashaday ayuu wuxuu ku jawaabay kaysar baad u ashkatootay kaysar baad u tegaysaa haddaba kolkii dhowr maalmood la soo dhaafay ayaa waxaa kaysariya yimid oo festos soo salaamay boqor agriba iyo bernike oo kolkii ay maalmo badan halkaas joogeen ayaa festos wuxuu boqorkii hor dhigay dacwaddii bawlos oo wuxuu ku yidhi waxaa jira nin felikos ka tegey isagoo maxbuusa kaasoo waagii aan yeruusaalem joogay ay wadaadadii sare iyo waayeelladii yuhuudda igu soo dacweeyeen iyagoo doonaya in la xukumo iyagii waxaan ugu jawaabay oo ku idhi ma aha caadada reer rooma in ninna xukuumad loo dhiibo intaan mudduciyaasha layska hor keenin muddacalayga oo la siin fursad uu isaga difaaco xaalka lagu ashkateeyey haddaba markii ay halkan wada yimaadeen anigu innaba siima aan raagin ee maalintii dambe ayaan waxaan ku fadhiistay kursigii xukuumadda oo waxaan amray in ninka la keeno laakiin markii ay muddaciyaashii istaageen ma ay keeneen innaba wax xumaan ah oo u eg wixii aan filanayey laakiin waxay ahaayeen su'aalo isaga ka geesa oo ku saabsan diintooda iyo mid ciise la odhan jiray oo dhintay laakiin bawlos leeyahay inuu nool yahay haddaba anigoo ka shakiyaya sidii aan waxyaalahan u sii haybin lahaa ayaa waxaan isagii weydiistay bal inuu yeruusaalem tegayo oo meeshaas lagu xukumo waxyaalahan iyo in kale laakiin markii bawlos doonayey in la sii hayo ilaa boqorku gargooyo waxaan amray in la sii hayo ilaa aan isaga kaysar u diro markaasaa agriba wuxuu festus ku yidhi aniguba waxaan jeclaan lahaa inaan ninka maqlo markaasuu yidhi berritaad maqlaysaa sidaas daraaddeed maalintii dambe ayaa agriba iyo bernike waxay la yimaadeen bandhig weyn oo waxay soo galeen maxkamaddii iyaga iyo nimankii sare iyo raggii magaalada ugu waaweynaa markaasaa festos wuxuu amray in bawlos loo keeno markaasaa festos wuxuu yidhi boqor agriba iyo ragga kale oo halkan nala jooga oo dhammow waxaad arkaysaa ninkan yuhuudda badan oo dhammu ay iiga soo cabteen
yeruusaalem iyo halkanba iyagoo ku qaylinaya waajib ma aha in ninkanu sii noolaado laakiin waxaan ogahay inuusan samayn innaba wax dhimasho istaahila oo isaga qudhiisuba wuxuu u ashkatooday boqorka sidaas daraaddeed waxaan goostay inaan isaga dilo haddaba anigu ma hayo wax xaqiiqaa oo ninkan ku saabsan oo aan sayidkayga u qoro sidaa daraaddeed ayaan isaga hortiinna u keenay iyo khusuusan adiga hortaada boqor agribow in kolkii loo imtixaamo dabadeed aan helo waxaan qoro waayo waxay iila eg tahay caqliyaraan in maxbuus la diro iyadoo aan aad loo xaqiijin wixii lagu ashkateeyey